waxaana wuxuu yiri marka Qaasim Hilowle Skiifo asagana caan ku noqday si wadani xitaa Talyaani uu ku heesay loo baahday yani kulli wixii ahaayeen dadka gumaysiga ka soo horjeedo oo gumaysiga nacbaa oo naga harab aad u jeclaayaan waxaa jiray Cabdullaahi Suldaan Timacade asigana waa dadka fanka maaragtay qiimo weyn ku lahaa oo gabayr waaweyn oo qiimaha leh lahaa wad garanaysaano xurriyada iyo ka sii horna waxbuu qaadayay kan ugu muhiimsan ee aadka loo jecel yahayna oo noqday gabayii weynaa ahaa caanka baxay kan nasiib kan nasaar waxaa jira abwaan weyn oo la yiraahdo Saciid Harawi asigana maxaa la yiraahdaa Saciid Harawi يعني عريدي مركي لقادناي dadka gabayda quruxsan ayagana iyo heesaha quruxsan sameeyay waa heesta aan baxday la yiraahdo goormaan ladnaanay 60kii lugooyadii nadeysay 26kii goormaan lulanay hadaad maqashid maxaa kugu soo dhacay waa waxa koox waa bari kugu soo dhacdo oo heesta qaadaysa abaan Saciid Harawana inuu kugu soo dhacaa loo baahan yahay waxa soo dhan waxa rabaa markay kugu shubaan qurux iyo raynrayn inay wadanka kugu la shubaan wax kale muhiim ma jiro oo markay kugu soo dhacaan wadanka iyo qiimo iyo dad isjecel iyo kugu soo dhacaan maxaa kamid ah hadana Abu Hadrawi markaa u nimaan hees aan u leeyahay hooyo Sawma hooyo laanta ay waxweyn waa qiimo gudbina hooyo qiimo leedo gudbina yani hooyo qiimo leedo gudbina maxamed sallallahu alayhi wa sallam ku qeynaa mo asayna daama qasho waxa rabaa inuu kugu soo dhacdo wadan weyn oo qiimo leh inuu kugu soo dhaco muhiim waa kan waxa jiray marka xurriyada iyo la qaatay oo la soo dhawaaday dad waxa leeyahay qiyaade ee Soomaa oo madaxa هذا عبد الله عثمان ugu horeeyay intii madaxweyne ka noqday dalkan waa dadkii howlaha markay soo socdeen iswaayasha iyo baarlamaanada ay ka soo shaqeynayeen uu ku jiray yani hadaa maqasho maxaa kugu soo dhacay aadan Cabdullaahi Cusmaan waxweyna kugu soo dhacay maxaa rabaa inay kugu soo dhacaan waxweyn inay kugu soo dhacaan la rabaa Cabdirashiid hadaa maqashid mesela Ali Sharmaarke waxaa rabaa inay kugu soo dhacaan waxweyn qiimo leh inay kugu soo dhacaan xilliga shaqeeyna xilli muhiim ah yani محمد إبراهيم حاج عقالنا قيموين واسيا شقوين عبد الرزاق حاج حسين وين مقطع يعني تصالي يرير لين سوقات تصالوين سوقات ويديك تا شخصيات كلام او بدن اني جيران ninka khadka dhexe sida xoog badan la ciyaarta uga ciyaaray oo diblomaasiyada ciyaaray عمر عبد قالب مثلا ودك aad ku jecla markii diblomaasiyada ay ugu soo dhacday aad maaragtay u xasuustay yani waninka ololaha jaamacadda aragtay in lagu biiray si fiican uga shaqeynayo malafka asiga loo dhiibay waa nin culus waa ninkaas diblomaasiyada dadka salka dhulka u dhigay waa Umar Cabdi Qaalib dhinaca bulshada dad jiray muhiima maxaa jiray dad ayaa jiray muhiima markii wax barasho la aado macallin jaamaca jira مثلا wax barasho markaa maqashid markii maxaa ku soo dhacay معلم جامع وحبرش مركا مقشيد وحال ربا اني كوغو سو دعان محمود احمد علي ninka odaga ah waxbarashada nidaamka asalka asagana dhulku dhigay environment iyo biyo markii laga hadlaayo farxad yaasiin ma maqashay farxad yaasiin ma la maqlay farxad yaasiin xamrooyin waay baad basaska laga rabo basas ma laga raad tasana maleena nooda direenta ka tirsanaa yaa yimid asoo direenta ku jiro geedka aasaa wadnaha istaagay barxadda loogu magac diray asana muxuu sameeyay shaqo muhiim uu sameeyay yani muqdisho in geedooda leedahay maar oo la dhirta la jiray yani maxay la dhulka doosidiisa iska ahaado dabaysha qaadaysa ciida dabaysha qaadaysa ila akhiro fahamtay qabowga hada magaalada ka dhexmaysa maxay la geeday wada leedahay yani kuleel ma qabnaa ma la fahmo idan waxa soo la isku dardaray markay kugu soo dhacaan maxaa laga rabaa inaad maqasho wax wanaagsan inuu ku hogaamiyo wadanka ina wadani noqoto intee ka bilaabay si fiican ku baranay iskuulaadka ku jirtay iskuulaadka ka dhameysay jaamacadaha markay gashay takhasus ka rabta baro xoog wax u baro
ما سمينه حوغا وحبرني waxbarashadaas ayada suluk sameynayso sulugaas markay sameyso waxa la rabaa inay kugu geyso dalkaaga inaad ilaaliso yani oo wax walba dhibaat ka ilaaliso wax walba wanaagana aad u soo jiiday yani wadanidu waxa lagu abuuraa mesela in iskuulaadka maada lagu soo daro leeyahay tarbiyada wadaniga ku jirta waa in lagu soo daray yani wasaaradda waxbarashada ka faa'iideysato ayada dhahda muqarrarkan anaga dajinayna Soomaaliyeed tarbiyada wadaniga in lagu soo daro ardayga dugsiga hoose ku jiro wuu soo qaadanaya dugsiga dhexe markuu soo galana dugsiga sare markuu soo gaarana qayb kale oo qaadanaya si uu fikiraan in sida loo sameeyo ka shaqeynay u baahan tahay yani iyo waxa meeshaas lagu qoray laakiin waa muhiim yani wadanka in la jeclaado kaliya ma aha waxay qayb ka tahay wadanka in la dhisay yani wadamada colaadaha ka dhaceen waa lagu dhisaa waxyaalaha lagu dhisay kamid tarbiyada wadaniga muqarrarka lagu daraa nabadda dhismaheeda qayb ka tahay iskuulaadka anaashiid subaxda aqaadin idin gaar ma jiraan oo daawurka markii la soo istaagay in la wada qaado ay waajibta in lagu daro waxaas adiga marka yar tahay waxa laga yaabaa inaadan dareemin laakiin marka icdaadiga soo gaartay isbedel uu kugu dhaco secondary marka soo gaartay haddana isbedel kugu dhaco marka marxaladan ka wada gudubta dhaxta markaas dhadhansan weys marka jaamacada gashid bisinka waxaan loo sheegay wax kale ahaayeen yani wala faham qaybay ka taasaasin loo dhis marka la isku dardaro waa in la isku wada kaashado dalkaaga inaad jeclaato waajib aad ku saaran waa meel kale ma haysid hatta hadda safarto meel kale ku noolaatid dalkaaga waa jeclash soo weydiiyay qofbaha ku nool hilowgii u qabaan wadanka waqtiga waayaha u diidaan oo ku soo noqoayeen laakiin weydii hilowgii u qabaan yani Soomaalidu waxay dhahdaa dalan dalkaaga hin dareen ku joog waay nin waxa arkay 30 sano ku nool oo dhahay Allah aniga dacwada hadii liigu oogo baasaboorka laga naqsadaan ka cabsaa ay am 30 sano joogtaa yidii 40 daa joogta xataa laga cishaa dii loo baahday yani mala faham meesha qof ku dhashay maaragtay oo 30 sano ku gaaray oo meesha ku dhashay oo wax ku bartay oo faliro dimbi intuu galo la soo tarxiilay maaragtay inta la soo jaabeeyay yani iyadoo laga tashanin yani asoo weyn arkay asoo iska dhex taagan dadkii ma yaqaan balkan si fiican u fahmay oo mujtamaca ku dhex noolayna waa laga soo kixiyay macnaheedu maxaa waaye masha adig ma lihid waa saas ma ugu dambeyn yani بينما مواطن كماشي كل شيء دو حل ولا حلا حوار نكو حنا ولا اسك دينا كم حل ليه هي دول كلا دوجر دول كلا يجود يعني ما فهم ماشي ما له ديمقراطيه بدن oo dadka laga aqbalo inay ku noolaadaan Mareykanka kamida dadka bay khalawaad gaaraan wala tarxiila saas ma ogtiin wala tarxiila haddaan lagu rabin waxlaha leen hatta kiisa lagu keenay lagu baxshay yani waana ku bixi adoo jeebeysana lagu soo raaca inta asgara kula socota markii lagu keenay markii kugu hubsadaan dhulku ku dajiyaan diyaarado inta kala fariisay noqonay ma fahamtay meesha idan dalka xuquuq uu leeyahay Soomaa dalka xuquuq uu leeyahay wax ku dhex baro duruuf kasto jirto waa ku khasbanta dalkaaga waay yani hatta damir ka aad u baahan tahay xiisi koos idan marka dadaaranku waxa waaye si fiican u baro si fiican marka wax u baratid ya wax bulshada wax ku soo celinaya qayb ka noqo dalka wax ku soo celinaya qof walba kaalin uu leeyahay Soomaa kaalintaada qaado wax ku celin dadka hadda jaamacadda gashid mesela xaafadada barayfad ka fur dadka wax bar hadda caafimaad gashid mesela umulisiyo waxa gashid ama wax health science la xiriiro meel yar sameey dadka u kaalmay caawi kaalintaada taas waay wadanka aad u khidmaysay yani dadkaaga u khidmaysay dadka dalkana way isleeyihiin yani dalka Soomaaliya dadkuna waa Soomaali sasmo aan isku balansan qolada kaalinteeda ha qaadato kaalinta ugu weyn wax baro kaalinta ku xigta bulshada ku soo celiyaan bas automatically هذا اسبدلي سو جلعيسيد يعني واد جلعين واد جلعان tahay dad akhrinta taariikhda ay ku daratin Nobel taariikhda Soomaaliya marka akhrisan wax weyn ka bedelay yani buuxsan jacayl ku buuxinaya dadka oo dhan ixtiraamaysa yani dadka oo dhan ayaad ixtiraamay
soomaalida yaa kala qaybiyey gumaysi yaa kala qaybiyey yani iyo dad kale shar wada saas ma oo dadka soomaalida waxa waaye waxa isu saarnaa beerahana way isu saarnaayeen ceelashana way isla cabaayeen way isdhex joogeen way dhici kartaa in isdagaalaan laakiin haddana waa la heshiisiinaa nabadoonnaa jooga فاتلوسها القبسة اللي أقرت ريرسن وينا لو جيسن جري يعني ولا حلين جري نبضونا جري يعني لكن واحد بديه جولا لسوق هذه مجال لك يعني واحد حق الوقي بسجري قارب حق ولا سوق هذه مجال لك يعني مجال واحد قال لنا كطلياني هذه يعني إن سياسة كجرت أضدك عادي ما فهمت المشهد واقعنا هيدنا دانا بدك هلين وأركينا هيدنا أو الوحصلة قيبس كبادية مجال هذا ما يلو يحيد نك في عن إنه كشقي هذا مهم أبي شقي بلك كشقي وحكى قبو أبي وح مرة طها إمو كل ترتم وحنا سمينا مستقبل وحنا سمينا كان الدوك بحماش إمو هذه لو اسقبسوا خطر واحد عد كانوا أمك عني أمك عيدي بلك أمر بريع ما فهم إيش أنا عد كانوا أمك عني أمك عيدي ما هذا ذي قيب كين وقت قاضو أفر سنة على الربابة شغالين يسعد أفر سنة اسكسونا أفر سنة وحوي 100 إذا قام الشقاق على قبس الماء صوف يرسو سياسيين تعلي هذا الماء وعلي هذا أد وهم نقضانا لي وح أوفيشيال ولا أوجيها يعني وكم مشغول سنين أفر سنة صورنا سو أفر سنة قال الماء برباري الله سع إلى آخره يعني ما أفر سنة ترتنا ذاك سوء بعد نبضوا عكالة يعني لكن فايل كان هو استاجع رقي نكي لها هافك كجت تاوين هاي مرة تال يريالي هو قال منك لها رافق كجت هاي مرة تال يري يعني مشروع الحبها إلا سبهستو لا هو بحالة طبعا وين ما قلت هذا كل هذا وحبر صفي عن الكاس قبل له كان احترام يعني مجتمع احترام قدري نقول بوسكي صديق يعني قفل بمحديه بوسكي صديق وحكى لدينا سوق على ده جلام حتى وإحنا كل عليا معه صومالي على هرم الله دينه هالكاس وحكوا سياق وقنع هذه وكسولين ما صومالي وحكوا سكيسه حكوا قنع هذه عيد وكذلك إذا كنت ترجع لنا كذلك لكن أنت تعصبته وحوين ومد ليه يكون مني وحدا ومد ليه أنا كسول لي أحسن من هذه ما فهم معي هذه كل فهمني المجتمع عدني وعن كل حياة ما فهم مش عن صومالي وحكوا سياق من ذا رمالي مجتمع أيها مرنا بدوناها مرنا أيها ودادها مجتمعنا وحبرها قبلها يويلش السجورنا والدين تمارة تكدح شقينا هذه نحل جارنا أيها وحين ذاك عام كه ذاك أك وحبرة حل جدا بانك هذا وحكم هذا الشيخ وين معانا والشيخ حسين عدل له إيه إذا نبون دارو مساجد كلها مساجد كسوحة سومالي ذا بقول كبير سديتا شيخ هسيك سؤال في الحين يعني وفن والباقي جري يعني الشيخ البيدي الشيخ سعداء وحقها كلية الشيخية مشايخ ذوي بندر أنت أنا كلامي قبل الله يميل والبيجوين والشيخ حروين كتالي بعض حروين كتالي يريد أن دحي حروين كتالي بيدر وكتالي سومالي يميل نقول للمال إلى هرجيسة يعني حرومها صوبنا ذاتك أيها وحلا جبر جري لقى توجيه جري ذاتك أساس مركا عام كوي مركا يكون صوب عام وعلى الربا ودن كأنه إمارتي هذا نقول صوب شيء شيخ وين أجري إذا عدى وحوا آخرين جري يعني شهادة عبد الله علي الليلة سبحانك اللهم وبحمدك إلا يهدى وعنهم علينا يا إذا عدوا وحكا آخرين جري يعني الشيخ محمد معلم مثلا صحوالي عصبادي اسكو دبريد كيدي مركا وحبرشده كسو نقدي شقوين قبطه يعني شيخوين عالم يعني الشيخ محمد معلم الشيخ محمود عبد العريف الشيخ ابو بكر نور الشيخ نور الدين ابو بكر حج يعني مشايخ يعني كل ما صوت تريكري يعني سومالي مشايخ ديدنا مهم هي مرشده ميلي وجرت هديك وصو دعان maxaa rabaa inay kuula noqoto wadanka inay kuula noqoto Soomaalidu waxay leedahay dad ganacsatada hanti haysta yani oo ilaahay hanti siiyay هري أولايا كمية مثلا هير دلفعة كمية مثلا تبنوا عاصو أيضا هنتيه يستاجر أيضا مركي يكون صور دعانا هنتيه دوغا غيب كمية ودنك واحدة من أولا شقينا ودنك إنه يقول الصور نغطة يعني إذا مركا أفراد مجتمع السوري أصلا ما يسنعوا كل حال ربعين يقول الصور نغطة ودنك جعيل كيس